meesha aan la leeyahay hagbad iyo hagbad laga hadlayo bal soo saara meesha hagbad ku qoran tahay dastuurkay ku qoran tahayna soo saara Adam Muuse markii doorashadiisii la dooranayay 66 xubnood Maxamed Cabdi Xaashi wuxuu helay baarlamaanka 720 cod Adam Muuse wuxuu helay 18 cod Cabdiraxmaan Faroole wuxuu helay 15 cod Allah uu naxariisto kulli inta dhibata Allah uu naxariisto ninka liyaada Abshir Muuse wuxuu helay 6 cod lix buu helay lix haygu qaban inaan haygu qaban dalkaas maalin walba anigu soo taagnaa waxa haray ninka liyaada Abshir Muuse lixdiisii cod Abshir Muuse la qaybsaday saddex cod waxay u biiray wareegii labaad waxay ugu biiray ninka liyaado ninka liyaada Adam Muuse wuxuu helay 18 saddexna waxay ugu biirtay ninka la yiraahdo Adam saddexna aaday saddexna waxay aaday ninka la yiraahdo Cabdi Xaashi markaan wareegaas halka markay joogtay Cabdiraxmaan Faroole haray waxa isku haray ninka la yiraahdo Maxamed Cabdi Xaashi iyo Adam Muuse 22 kala haysta halka markay joogtay 15 Cabdiraxmaan Faroole hal xubin waxay aaday Maxamed Cabdi Xaashi 30 buu helay 14 xubnood waxay aaday ninka la yiraahdo Adam Muuse 34 35 iyo 31 la kala helay mar walba saasa loo tartamayo saasa wuxuu ahaayeene xagee ku qoran tahay hagbada meesha la yiraahdo iyo reer hebel waa waxaan jirin shacabkana yaa la jaaweerin dadkana yaa been loo sheegin qolo waxaan leeyahay ma jirto waxaan waa tartan iyo calaf iyo nasiib cid reer hebel oo wax u xiran tahay ma jirto xaflad baynu ku jiraa haddii meesha hadal ka dhacanin oo cid iyo wax gaaraan qof iyo wax laga sheego qof iyo meesha wax yiraahdo xafladaasaynu ku cafiyeynaa xaflada ma arag taasaynu ku cafiyeynaa qofkii caawa hadal ka dhaco halka markay inta inoo marayso waxaynu maraynaa 50 degmo iyo 9 gobol baynu maraynaa soo lama faa'iido lama gaarin waa faa'iido aynu gaaray halka inaan caawa marayno waxaynu maraynaa waaga meeshan taybaan jirin qurux baan jirin calan baan jirin waxaan jirin wax badan baan jirin halkaasaynu caawa maraynaa waxaynu maraynaa dawlad wax qabatay iyo horumar iyo nidaam iyo qorshaynu maraynaa waxaynu maraynaa inay gobolladeena wada camirmeen Garowe waa camiran Boosaaso camiran Baran baa camiran waxa camiran meesha Qardho waxa camiran Buuhoodle waxa camiran meesha la yiraahdo Gardafu waxa camiran Gaalka waa wada camiran yihiin degmooyinkii baa wada camiran oo aad u wada camiran degmahan camiran ma jirto Buurtila camiran buu waxa camiran Dhaar baa camiran waaciya camiran waxa camiran maxaa la wada sheekh rakac degmahan camiran ma jiro camiraanshaheena marka aan haysano oo gobol iyo degmo camiran tahay inaan ku dheganaano adkaysano ayaa leena ka rabaa waxaan rabaa inaan kala idin sheego dadow miye masoc madaxweynuhu baarlamaanka wuxuu ka sheegay waa fadhiyaan beelata baarlamaankii in waqtiga hadhiman la aadi doono axsaab la aadi doono oo xisbiyadii iyo ururadii laga shaqeyn doono madaxweynuhu ururadii buu yeeray sidaas oo kale uu noo sheegay waana la qaadanay ururadii saasaan la qaadanay guddigii doorashada oo shaqo badan qabtay oo aad u shaqeeyay oo wax qabtay oo aan amaanayana waa fadhiyaan saddex dawladii Cabdullaahi Yuusuf 3 sano kadib waxay ahayd in la sameeyo in la aado xisbiyada in la aado miyay suuragal tahay 4 sano maraynaaye inaan bartii taagnaano war waxa miyaan qaadan karaa dhalinyarada waxa miyaan rabtaan kuma socon karo marka waxa madaxweyne ku xigeen gudoomiye baarlamaan gudoomiye ku xigeen wasiiro dawlad waxa soo dhan waxaan qaadan karno maaha meel aan taagnaan karno waxa kan maaha meel kasta han lagu sintay dawladiinan maanta meesha joogta waxaan idin ka rabnaa ururadii waa idin la qaateen ururkii ka haraya isaga yaqaan annaga shaqadeeda maaha cidii diyeesa annaga maaha annagu waxaan rabnaa dalkan waxaan u rabnaa ururada handala geliyo degmooyinkii hore oo la doortay sidii loo doortay waa ogeydeen dawladihii iyo Yurubiyaanki waa ogol yihiin gaaladii waa ogoshahay dadkii waa ogol yahay doorashooyinka hore waxa ka dhacay in islaan intay umushay ilmihii intay halka dhigatay ay soo noqotay codaysay 9 jir baa codeeyay gaalkii waxaan xusuustaa anu ayl baan joogay gaalkii Switzerland baa yimi markuu halkaas soo istaagay sawradii uu garaacay qof ka leexanay safka ma jiro qof safka safu banaanay ma jiro ammaanku boqolkiiba boqol buu ahaa madaxweynuhu Qardho joogay madaxweyne ku-xigeenku Ufeyn buu joogay wixii dhacay waa ogeedeen
haddaan nagu celisaanin haddeeraan idinla xisaabtamaynaa haddaan nagu celisaanin wixii horeeto mas-uuliyadda idinkaa qaadayo waana idinkula xisaabtamaynaa meesha hayaan walaalaheen Somaliland daris bayna leeyihiin meesha waxay ku gaareen dhaqaalihii adduunka oo dhan waxay ku heleen waa qof iyo cod bay ku heleen saddexdiina inuu halka fadhiyo ugu sareeyo qof iyo cod noo dhiga qof iyo cod baan rabnaa soo sax maaha ilaahu waa maqlaysa ilaahu waa gaarsi dhalinyarada meesha aad ka keenay waa ogeydeen meesha maanta mareysana waa u jeedaan dhalinyarada soo sax maraha dhalinyarada waa maqlaysaan wixii hadda xumaa inka ka mas'uula haddaa halkaana gaarsiisaan oo meeshaana geysaan waxaanu ogolahay saddexdiina inaan mar kale idinku celino soo ugu celin halkaana geeyaan kunka qof baa ka mas'uul ummadda Soomaaliyeed guddiga doorashaduna waa maasan yihiin culimaduna waa maasan yihiin